xarunta aqalka dowladda hoose xamar ayaa lagu soo bandhigay 4 gaadiid oo nooca gurmadka degdega ah ambalaasta kaasi oo maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay in lagu qidmeeyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaana madasha lagu soo bandhigay gaadiidkani goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xamuud iyo sidoo kale safiirka jaamacadda Carabta u fariya Soomaaliya Xamuud Samraan Al-Xuweyti gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso ayaa ugu horeen ka hadlay gaadiidkani la soo bandhigay iyo waxyaabaha uu ka caawin doono bulshada reer Muqdisho waxaan aad uga mahad celinaynaa safiirka jaamacadda Carabta oo maanta halkan nala joogo iyo runtii sida ay jaamacadda Carabta mar walba u gargaarayso ama la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed sidii wadankan uu sidii barsimaadka ku soo noqon lahaa Soomaaliya waxa lagu yaqaanay inay jaamacadda Carabta kaalin weyn uga jirto oo magac iyo sharaf iyo karaamaba ay ku lahaan jirtay maantana waxaa moodaa in aan soo kabanayno magacii iyo sharaf karaamada aan ku lahayna uu soo noqonayo marka waan mahad celinaynaa taakulayn yar waaye laakiin waa wax muhiim u ah magaalada Muqdisho iyo caasimadda maamulka gobolka Banaadir wuxuu in muddo ahba ka shaqeynaa sidii bulshada loogu adeegi lahaa bacdama aan u hadlayno bulshada gobolka Banaadir waxaan mudnaan siinay sidii gurmadka degdega ah looga hirgelin lahaa dhammaan degmooyinka gobolka waxaan dhisnay xaruntii gurmadka degdega ee degmada Hodan iyo degmada Wadajir waxaan rabnaa in degmo walbana aan gaarsiino adeegyadaas 4 ambulance oo gaadiidkan gurmadka degdega ahna wuxuu aad iyo aad wax ugu tarayaa xarunta gurmadka degdega ee maamulka gobolka Banaadir si aan bulshada ugu adeegno safiirka jaamacadda Carabta u fariya Soomaaliya Danjire Xamuud Samraan Al-Xuweyti ayaa dhankiisa tilmaamay in jaamacadda Carabta ay ka go'an tahay taageerida barnaamijyada kala duwan ee lagu xoojinayo horumarka Soomaaliya كما أشكر معالي المحافظ على استقبال السيارات في مقر المحافظة لأنه لا يوجد عندنا في البعث مكان وهذه حقيقة إحدى جهود مجلس الصحة العرب والتي إن شاء الله نتمنى قريبا إن شاء الله أن نحصل على تجاوب إن شاء الله. نور سعيد تاليل تلفزيون قرنك الصوماليات أقل كدولة دوسي حمر مقالة مقدشو.